howlgalkan oo ahaa mid lagu soo qabqabtay hub iyo rag ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa waxaa waaberigii hore ee saakay laga fuliyay xaafado ka mid ah degmooyinka Yaaqshid iyo Hiliwaa ee gobolkani Banaadir iyadoona howlgalkani si wadajir ah ay u fulinayeen ciidamo ka tirsan hay'adda nabad sugidda kuwa booliiska waxaana horkacayay wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo ku-xigeenkiisa taliyaha nabad sugidda kan booliiska iyo saraakiil kale markii uu soo ilaaday howlgalka ayaa waxaa si wadajir ah saxaafadda ula hadlay wasiirka amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa ayna sheegeen in howlgalkan ay ku soo qabqabteen rag ka tirsanaa xarakada al-shabaab oo sida ay sheegeen ku dhumaalaysanayay xaafadda suuqa xoolaha iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo hub ah howlgaladan waaweyn ee bilowday waxay qayb ka yihiin howlo isdaba joog ah oo la rabo in wax looga qabto amniga iyo xasiloonida magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka runtii howlgallo ay dhamaan ka wada qayb qaateen hay'adaha amniga oo idil ayay ahayd si habsame leh ilaa hadda u socdaan markaan u soo koorgalnay waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in la joogteyn doono طبعا howlgalladan oo kale dadweynaha iyo shacabka wax yar oo ciriiri ah iyo wax yar oo culays ayaa uga yimaada mar walba waxaan ka rabnaa shacabku inay nala fahmaan nala gartaan hadafkii ujeedada ma aha in dadka la ciqaabo hadafkii ujeedada ma aha in shacabka la dhibo laakiin hadafkii ujeedada waxay tahay in amniga iyo xasiloonida oo dhamaanteen dan noo wada ah ugu horeentana cid ay dan u tahay uu shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis uu yahay in la adkeeyo waxa xalay bilowday ilaa ay shalay howlgallo lagu sifeynayay amniga magaalada qaybaha ugu muhiimsan iyo baaritaano joogto ah oo had iyo jeer si joogto ah u dhici doona meel walba ka mid ah magaaladana runtii lagu sifeynayo laguna hubinayo in amniga magaalada lagu sugo dhammaan waxa ka qayb qaadanaya ciidamada amniga waxaanan howlgalladii qaar ka mid ah ay ka bilowdeen suuqa xoolaha Cali Turcaaye Gubta Cabdi Ciise miisaanka dhuxusha ilaa iyo tiida waxa ilaa hadda lagu soo qabtay dad gaaraya 1,100 baaristoodii weli way socotaa qof allaaliyo qofkii ka mid ah oo dambi lahaynna si dhaqso ah xorriyadiisa u helayaa waxa ciidamada ka go'an ciidamada amniga waxa ka go'an inay runtii meel walba ugu tagaan cadowga kana safeeyaan kuwa gudaha ku dhumaalaysanaya sidoo kale waxaan ka codsanaynaa shacabka in ay gacan ka siiyaan ciidamada amniga sidii howlgalladaas ay ugu heli lahaayeen kuwa nabadda diidan oo khalkhalkii dhibaatada u geysan kara ummadda iyo shacabkaba waxaan aad iyo aad runtii ugu dadaalaynaa qof kastoo muwaadina oo aan dhibaato iyo dembi gelin inuu xorriyadiisa si dhaqso ah u helo markii la hubiyo kadib baaristuna wax caadiya waxayna socon doontaa ilaa iyo inta ay ka hagaagayso hawsha amniga oo idil waxaana laga samayn doonaa goob kastoo ka mida magaala madaxda iyo dhammaan dalka oo dhan Maxamed Bilag Geelle Somsat magaalada Muqdisho